habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawa iyo caalamka waxaan hay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ayaa sheegtay in dadka Rohingya ay ciribtir qarka u saaran yihiin waxayna ku baaqday in la qaado tallaabooyin dadkaasi lagu ilaalinayo warbixin dheeraad ayaan idinka haynaa xaaladda dadka Rohingya iyo maxkamadda caalamiga ah wararka kalena waxa ka mid ah magaaladan ayaa bando lagu soo ragay iyadoo dawladda Shiinuhu gaadiidka dadweynaha ee magaalada Wuhan xayirtay gabi ahaanba iyagoo isku dayay inay ka hortagaan fidista coronavirus dooda khamiista ee caawa waxaanu ku eegaynaa maalgashiga iyo Afrika laakiin waxaan isweydiinaynaa Afrika ma ka faa'iideysan doontaa fursadaha maalgashiga kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka waxaanu ku bilaabaynaa dalkaasi Myanmar maxkamadda ugu sareysa qaramada midoobay ayaa heshay in xasuuq ku sameyn karto in xasuuqi ka dhacay dalkaasi baaritaan ku sameyn karto ku aadan in dad la xasuuqay waxayna sidoo kale soo jeedisay in tallaabooyin degdeg ah la qaadi doono si loo joojiyo dhibaatada qaadiyaal ka kooban 17 garsoore ayaa si wada jir ah u taageeray in lagu soo rogo tallaabooyin lagu badbaadinayo cadeyn walba oo muujinaysa in dambi dhacay oo hadhow la horkeeni doono maxkamadda Myanmar must in accordance with its obligations Myanmar waa inay u hoggaansato waajibaad kasta oo ku xusan axdiga siiba kala xidhiidha xubnaha Rohingyaha ah ee ku sugan dhulkeeda waa inay qaado tallaabo kasta oo ay awoodo si looga hortago fulinta gumaadka sida uu farayo qodobka labaad ee axdiga dabargoyntu intii u dhaxaysay October 2016 ilaa August 2017 militariga dalkaasi Burma waxa lagu eedeeyay in ay qaadeen oo ay sameeyeen olole dhulkooda ay kaga sifeynayaan dadka Rohingya ah in ka badan 1 milyan oo qaxoonti ayaa ku nool xeryo sidan oo kale weeg oo xadka dhankiisa kale ku yaala dalkaasi ee Bangladesh waana sababta wadankan yar ee muslimka ah ee Gambia ee Afrika ku yaala kiiskan u keenay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda haddii aynu eegno imika xukunka maxkamadda ayaa waxa ay tahay in lagu amray dalkaasi Myanmar in uu isagu qaado tallaabooyin ay lagu doonayo in ay kaga hortagaan xasuuqa oo la sheegayo in dadka Rohingya ahi halis ugu jiraan tallaabooyinkaasi waxa kamid ah dilka iyo dhibaatada waxyeeleynaysa dadkaasi ee ku nool iyagu maxkamaddaasi ee ku taala dalkaasi in ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah raahday sidoo kale waxa la amray inay xafidaan cadeyn kasta oo iyaduna muujinaysa in halkaasi gumaad ka jiray oo la ururiyo cadeymahaasi gumaadka si farta loogu fiqo tallaabooyinka ka dhan ah dawladdu ay ka soo horjeedsan kara laakiin se maxkamadda waxa kale oo ay sheegaysaa awood inaanay u lahayn in ay fuliso ama ay dhaqan geliso amaradaasi ay soo saartay dawladda Myanmar ayaa weli kama aysan jawaabin iyada xukunkaasi balse hogaamiyaha dalkaasi aan raadey Aung San Suu Kyi oo lagu dhaleeceeyo dunida oo dhan sida ay ugu jawaab celisay dhibaatada halkaasi ka taagan Rohingya haysta ayaa waxa ay maqaal ku qortay jariirada Financial Times iyadoo qirtay in laga yaabo in dambiyo dagaal ay dhaceen waxaana ay tiriyadu ka hadlaysay jariiradaasi dambiyo dagaal oo ay geysteen xubno kamid ah xoogagga difaacu waxa laga dacweyn karaa nidaamka cadaaladda ee militarigana waxaanay tahay tallaabo weyn oo isbedel ku yimi mowqifka dawladda oo dhawaan ku tilmaamayay markhaatiyada ku aadan dilalkaasi iyo dabqabadsiinta ee hore loo soo sheegay warar been abuur ah waa ka wariyaha BBC Myanmar oo nagala soo xiriiray Yangon weli wax rasmi ah ma maqal laakiin maalmihii la soo dhaafay waxa socday diyaargarowga go'aankan dawladda ayaa warbixin soo saartay maalmo ka hor iyaga oo sheegay inuusan dhicin gumaad isirsooc ah ciidanka waxa ay sheegeen inay dembiye galeen laakiin aanan xasuuq ama gumaad lagu tilmaami karin waxa la filayaa in go'aanka heeg ka soo baxa uu ka duwanaan doono dooda dawladda waxaana la filayaa in arrintani ay baabi'in doonto sumcadda ay Aung San Suu Kyi hogaamiyaha Myanmar ku leedahay caalamka waxa xusid mudan inaanay ku khasbanayn inay bishii December ee la soo dhaafay tagto maxkamadda laakiin ay iyadu arrinta go'aansatay waxa ay dhabtiisii noqonaysaa gaashaanka dambiyada ay ciidanka Burma leeyihiin maxkamadda waxa ay ka hor sheegtay inaanu dhicin kufsi wadareed dil fara badan inaanu jirin wax cadaadis si gaar ah loogu hayo dadka Rohingya waxa iska muuqata in garsoorayaashu ay si xushmad leh u dhageysteen laakiin ay go'aansadeen in waxa ay sheegtay aanay run ahayn
gobolka Rakhiin dhowr jeer oo hore ayaanu booqannay markaad halkan imaanayso waa inaad ogolaansho ka heshaa dawladda si aad u tagto dhanka waqooyi ee dalkan waa meesha lagu eedeynaya in xasuuqa uu ka dhacay sanadkii 2017 waa goob ay nolosheedu runtii tahay mid aad u adag 600 ee kun ee reer Rohingya ee weli halka ku nool ma haystaan dhalasho ma helaan waxbarasho iyo daryeel caafimaad tira aad u tira badan oo iyaga ah ayaa ku xayiran xerooyinka ma awoodaan inay u safraan Yangon magaalada ugu weyn halkan tusaale ahaan waxa laga warsugayaa sida dadka noloshoodu ay wax isaga bedeli doonto marka la eego xukunka maanta ka dhacay Hague oo kumanaan kiiloomitir halkan u jirta sababtoo ah inkastoo ay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ay go'aan qaadatay awood uma laha inay wax qasabto oo ay xukunka fuliso ma dhici doonto in boolis caalami ah ama nabad ilaaliyayaal qaramada midoobay ka socda ay soo galaan xadka Myanmar xilli dhow waxa ay gabi ahaanba ku xiran tahay sida Myanmar ay ugu hoggaansato xukunka maanta Hague ka soo baxay bal markan aynu eegno wararka kale caawa wax soo saarka batroolka Liibiya ayaa hoos aad ugu dhacay imika 3 meelood meel un ayaa la soo saaraya batroolka sida uu sheegay madaxa shirkadda shidaalka Liibiya waxaana ay sheegeen sababtu tahay go'doomin soo rogay hogaamiyaha falagada Khalifa Haftar waxaana uu sheegay in laga yaabo in wax soo saarku istaago ayaamaha soo socda General Haftar ayaa dhimaya shidaalka la soo saarayo si uu dawladda cadaadis u saaro Liibiya qiimaha saamiga shirkadda gawadhida electric gas sameeyay Tesla ayaa dhaafay $100 bilyan waa shirkadda labaad ee ugu qiimaha badan kuwa gawadhida sameeya Toyota marka laga tago Tesla weligeed faa'iido may sameyn haddana kor ayay u qaadeen wax soo saarka warshadna Shiinaha ayay ka furteen saddex magaalo ku yaala dalka Shiinaha ayaa mas'uuliyiintu go'doomiyeen si la isugu dayo in la xakameeyo fidista fayraska dhimashada leh ee coronavirus magaalooyinka Huangong iyo Eshu oo marka la isu geeyo dadkoodu yihiin 8 milyan iyo badh ayaa lagu wadaa in laga joojiyo dhammaan hawlaha gaadiidka labaduba waxa u dhow yihiin Wuhan oo magaalada fayrasku ka soo bilowday taasi oo iyada bando lagu soo rogay 17 ruux ayaa ilaa hadda dhintay 600 oo qofna cudurka way la jiifaan Ismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya halkani waa bartamaha meesha uu ka dilaacay cudurka isbitaalada Wuhan way buux dhaafeen cudurka wuxuu ku dhacay in ka badan 10 oo ah shaqaalaha caafimaadka sidaa darteed waxay bilaabeen dhar ay isaga ilaaliyaan hadda isku day degdeg ah oo lagu hakinayo in fayrasku sii fido ayaa waxa la joojiyay dhammaan gaadiidka magaalada oo dhan waxa la wada joojiyay duulimaadyada dhammaan tareenada basaska iyo gaadiidka biyahana waa la joojiyay dadkana waxa lagu la taliyay in ay guryaha joogaan dadka Wuhan waa 11 milyan waa in ka badan inta London ku nool garoonka caalamiga ee Wuhan waxa sanadkii yimaaday in ka badan 24 milyan oo ah duulimaadyada tooska ah ee London Paris Dubai iyo magaalooyinka kale adduunka duulimaadkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Wuhan ee UK yimaada arbacadii ayuu Heathrow ka soo degay rakaabka waxa la kulmay shaqaalaha caafimaadka kadib markii ay ka soo tageen diyaaradda ma jirin wax baaris ah Wuhan mana jirin markaan soo degay waxaana la siiyey waraaqo ay ku qoran yihiin haddii aad dareento calaamadaha wac xarumaha caafimaad balse lama hubin heerkulkayga waxba layma weydiin marka baasaboorka la hubinayay in fayrasku sii fido waa mid aan laga fursan karin kumanaan ku nool Wuhan ayaa horay magaalada uga baxay fasaxa sanadka ee Shiineeska 400 milyan oo ruux oo Shiinaha ku nool ayaa toddobaadkan safraya balse fayrasku wuxuu u muuqdaa mid ka degdeg yar 2002 markii uu dilaacay SARS-ka kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 800 oo ruux fayruskani wuxuu u muuqdaa inta badan kiisaska uu xanuunkoodu yar yahay astaamuhu way ka muuqdaan balse astaamuhu uma cadda sida hargabka oo kale marka taasi waxay leedahay caqabad ah in si degdeg ah ee aan loo caddayn karaynin inkastoo war fiican ay tahay sida aan qabo oo ay tani tahay mid aan loogu dhimanayn sida SARS-ka uu ahaayoo kale balse weli waxaa jira in badan oo aan la aqoon hay'adda caafimaadka adduunka waxay dib u dhigtay go'aanka ilaa maanta ee ku saabsan haddii lagu dhawaaqayo xaalad caafimaad oo degdeg ah go'aanka in lagu dhawaaqo iyo in kale xaalad degdeg ah oo caafimaad oo dunidu ay ka walaacdo waa mid aan si adag u qaadanayno iyo mid aan u diyaargaroobayno iyada oo la tixgelinayo dhammaanba caddaymaha Shiinaha waxaa si weyn loogu ammaanay jawaabta degdeg ah ee furan ee fayraskan cusub dadka adduunka ugu badan wax fursad ah ma luminayaan magaalada London waxaa ku soo dhamaaday shirka
maalgashiga ee UK iyo Africa oo ay dowladda UK soo qabanqaabisay waxaa ka soo qayb galay in ka badan 15 ka mid ah madaxda Africa. Shirkan waxa ugu dambeeyay shirar xiriir ah oo loogu magac daray Africa iyo dal kale oo loola jeedo fikradda ah in wadamo Afrikaan ah uu shir u qabto dal kale oo aan Afrikaan ahayn. Haddaba Afriki maxay loo danaynayaa imika oo aad loogu xiiseynaya wax soo saarka guud ee Africa waxa uu gaari doonaa baa leeyahay ku dhawaad 3 trilyan oo dollar sanadku markuu gaaro 2025. Africa waxay hooy u tahay baa leeyahay 8 ka mid ah 15 dhaqaale ee aadka u koreeya adduunka markaad eegto. Ganacsiga Africa iyo dalkan UK waxa lagu qiyaasay isaguna inuu gaaray 40 bilyan oo dollar 40 bilyan oo Guinea aan idhaahdo sterling 2018. haddaba marka aynu ka hadlayno shirarka caynkan oo kale ah waxa ay socdeen ku dhawaad muddo sanad ah oo runtii ay tahay in aynu dib u eegno kuwii ugu dambeeyay shirkii ugu horeeyay waxa ay qabtay Faransiiska waxaanu shirkaasi dhacay 1927 Jabaankuna waxa uu qabtay 1903 wuxuu qabtay 3 Mareykanka laftigiisu wuxuu qabtay 2014 kii ugu dambeeyna Ruushka ayaaba qabtay sanadkii hore aynu soo dhaafnay. Shiinaha ayaa isna bilaabay 2000 qabashada shirarka Shiinaha iyo Afrika loogu talagalay. Haddaynu eegno hore ugu socono waxaan arkaynaa in wadanka Turkiga laftigiisu uu ahaa wadamada ugu dambeeyay oo soo galay maalgashiga qaaradda Afrika ee runtii la tagalayo. Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson oo shirka ka hadlay ayaa muujiyay ahmiyadda Afrika. More than half the world's fastest 15 in ka badan kala bar dhaqaalaha koraya ee dunida Afrika ayaa laga leeyahay 2 meelood oo 3 dhaqaalaha Afrika waxa uu si degdeg ah uga kabcaya dhaqaalaha caalamka. Africa is the future. Afrika waa mustaqbalka. UK-na door weyn ayay doonaysaa inay ka ciyaarto. To play in that future. Dooda Khamiista oo aynu ku eegayno maalgashiga iyo Afrika haddii aynu eegno qaybteeda dambe soo dhawaada daawadayaal wali waxa daawanaysan caawiya caalamka anoo Cabdiraxmaan Badhaan idin la socodsiinaya wararka waxa ugu waaweyn maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dadka Rohingya ay ciribtir qarka u saaran yihiin waxayna ku baaqday in la qaado tallaabooyin lagu ilaalinayo xaqooda. dalka Shiinaha magaalooyin dhan ayaa dawladdu bando ku soo rogtay iyadoo laga baqayo fidista viruska coronavirus. sidaad qaybtii horeba ku daawateen dooda Khamiista ee caawa waxaan ku eegi doonaa maalgashiga iyo Afrika. waxa igala qayb galay stuudiyaha la jooga Cabdi Cali Daakir oo ah aqoonyahan cilmiga dhaqaalaha waxaana ku soo jira Nairobi stuudiyahayaga Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isaguna ah aqoonyahan arrimaha Afrika ee ka faalooda. waan idin soo dhaweynayaa labadiinaba soo dhawaada leeyahay. haddeen hore barnaamijka u gallo Cabdi Cali Daakir dhaqaalayahan baa tahay in adigu in arrimahaas waan ka waraysan doonaa bal marka hore laakiin Cabdiwahaab baan siinayaa oo jooga Nairobi. Cabdiwahaab hardankan cusub Afrika loogu jiro sidee bay Afrika uga faa'iideysan karaysaa adoo soo koobaya? horta runtii Afrika waxa way mustaqbalka dunida weeyaan soo sheegay Boris Johnson weeyaan qaaradda waxa ku nool ilaa 1.2 bilyan oo qof ayaa ku nool ilaa 420 milyan oo dhalinyaro ah oo shaqeynaysa qaaraddu leedahay. qaaraddu waa qaarad aad iyo aad u dahan oo kheyraad far badan leh waana mustaqbalka dunida saan sheegnay haddana dunida maanta way ku tartamaysaa
waad arkaysaa maaragtay yani China, waad arkaysaa yani UK, waad arkaysaa yani America, waad arkaysaa Japan, waad arkaysaa Russia, waad arkaysaa yani UK aad ugu dambaysa yani qaaradda Afrika ay u qabanayaan shir lagu maalgashanayo. marka hadda imanka aan kula hadlayo waxa weeyaan qaaraddu waxa weeyaan maalgashi ugu badan hadda waxa ku sameeyay wadanka China wuxuu gaaray ilaa 300 oo bilyan buu gaaray oo lacagta dollarka ah. waxaa ku xigta America ayaa ku xigta oo 91 bilyan oo dollar ah. imanka waad arkaysaa wadanka UK ilaa 60 bilyan buu ballan qaadayaa in qaaradda Afrika uu gelinayo. maxaa yeelay UK waxay ka baxday yani wadamada Yurubka ay ka baxday. marka qawaanintii qaban lahaa wadamada Yurubka ayaa runtii oo xagga ganacsiga maanta way madax bannaan tahay. taa marka waxay keentay markii inay runtii waad mahadsantahay Cabdi Wahaab oo ay maalgashato. Cabdi Wahaab waad mahadsantahay ku soo laabanaya. Cabdi Cali Daakir adigu dalka UK baad ku nooshahay dhaqaalehana waa tahay wadankii Yurub ka baxaya midowgii Yurub aan idhaahdee markaa ma la odhan karaa imika ayuunba Ingiriiska soo baraarugeen markii ay Yurub ka baxayeen markii hore Afrika shirna uma qaban jirin hawlaheedana way ka gaabiyeen sida aynu warbixinta ku arkeen. runtii marka hore BBC-da waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan salaamayaa. marka xigta maalgashiga hadda uu dalka Britain oo culayska saarayo sida aynu ka wada warqabnay Afrika waxa ka jiray loolan aad u culus oo maaragtay dhex marayay awoodaha ama dalalka dhaqaalahoodu maaragtay uu koreeyo. dhaqaalaha dunidana si loo fahmo waxa lagu lisaa waxa weeye maalgashi inuu jiro si loo helo maaragtay kobac badan ee dhaqaaluhuna businesskaas iyo baac mushtarigaas ayuu ka yimaadaa kororka dhaqaalaha intiisa badan. arrinta Brexit-ka laakiin hadda Daakir gasho yes marka dalka Britain wuxuu ka baxayaa maaragtay market aad u culus oo 700 oo milyan ah ayuu ka maaragtay guuray wuxuuna u guurayaa Africa waxay ku socotaa almost 1.3 ku dhawaad bilyan dad ah. marka market culus ayuu u guuray waa the right movement ayuu sameeyay. Africa waxa kale oo taariikh fiican ah dalka Britain inuu yahay maaragtay wadan dhaqaalaha maaragtay shanaad dunida ah in uu maaragtay maalgashiga uu garanayo qaaradda Africa in culture-ka marka la eego iyo siyaasadaba uu yahay wadan xoog ku leh oo maaragtay koror badan ku leh marka culture-ka xataa hadda waad maadsantahay Daakir waan kugu soo noqonayaa. Cabdi Wahaab Dr. Cabdi Wahaab waxaad ka hadashay tirooyin badan baad sheegto maalgashiga laakiinse maalgashiyadaasi dadkii Afrika ma ka faa'iideen wadamada Afrika wada aragtay dhaqaaladu sii xumaanaya meelo badan dhalinyarada Afrika oo kuwan qaxaya tahriibaya adduunka u kala soconaya hay'adda transparency oo kale warbixinaha soo saaraan wadamada Afrika musuqiya waxa ku badan dhibaatadii kala dawladnimo marka Afrika ma ka faa'iideysatay maalgashinadaasi mise meel foosta badan baa la dhaaminaya. qorta inta badan waxaad moodaysaa runtii Afrika inay hareeyeen yani dagaalo sokeeya iyo qaxooti fara badan oo dhalinyarada u taariibaysa wadamada Yurub. waxa kale Afrika hareeyay waxa weeyaan yani faqri ayaa hareeyay laakiin si kastaba ha ahaata haddana marka Afrika marka deegtay 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor sayid maanta ma aha. Afrika way soo kacaysaa, Afrika way baraarugaysaa, Afrika runtii wax badan bay hadda ogaatay. Afrika waxa dad badan wax bartay baa la helayaa. Afrika imanka waxa la helayaa dad badan oo dhaqaaliyahan ayaa la helayaa. marka Afrika imanka way soo jeedaa way soo baraarugaysaa. waxa runtii wax xusid mudan in wadanka China la yiraahdo runtii aad iyo aad u maalgashanay wadamadan qaaradda Afrika taas runtii yani deymaha uu siinayo ama maartay maalgashiga uu sameeynayo uusan ku xireynin yani dimuqraadiyad uusan ku xireynin yani xuquuqda aadanaha ka dhexgala laakiin taasi miyaan dabin ku hay wadamo badan oo Afrikaana in Shiinaha laga soo qaato deyn badan oo hadhow tolano wadanka uu dhibaato ku galo sida la soo qoray wadamo badan imika inay deyn la liitaan. wala horta dhab weeyaan maxaa yeelay sidii loo eego waxa weeyaan dhibaato badan bay keeni karaysaa maxaa yeelay dhaqaalaha inta la eego dan si wanaagsan loo maamulin waxa weey dadka elite-ka qaaradda Afrika xukuumaya dhici karta inay carto yani jawaabkooda macna ay ku dambeeyaan taasna way keeni kartaa marka dalka inuu deyn macna ula dalacdago ama wadanka uu deymoobo ama Afrika ay noqoto waxa loo yaqaan banana republic ay noqoto taa waa laga baqaya cabsi noocaas way jirtaa. laakiin mahadsantahay Cabdi Wahaab oo ku soo noqonaya Cabdi Wahaab waad mahadsantahay. Daakir Ingiriiska ama UK taariikh dheer bay leedahay Afrika saad sheegto wadamadan kale way kaga taariikh weyn laakiinse maxay imika la sameyn karayaan oo ka duwan wadamadii kale. Shiinihii baa raba sida Cabdi Wahaab sheegay, Ruushkii baa raba, Turkigii baa raba, maxay Afrika u qabanayaan Ingiriisku? runtii marka hore dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan si ay u fahmaan dalka qaaradda Afrika waxaa ku loolamaya waqtiga xaadirka ah awoodaha ugu badan ama awoodaha dhaqaalaha hogaaminaya badidooda. dalka Britain waa ka mid runtii dib markaan u noqdo 2018kii dhaqaale
ganacsi oo xoog badan ayuu China geliyay oo $60 billion ahayd waxa uu ku xidhayay taa iyada ah isaga oo meeting kale oo ka horeeyay 2015 dhaqaale leeg oo China maaragtay geliyay marka loolanka ka jiray waxa ganacsiga ka jiray oo dhan uu hareeyay maaragtay ganacsiga uu ku leeyahay China shirkadihii dunida ugu awooda badnaa haday tahay Mareykanka dalka Britain marka wuxuu ku jira hadda in uu maaragtay loolanka jiraha oo awood leh ee dhaqaalaha ah inuu ka qayb galo uuna awood maaragtay ganacsi ku fuliyeen waa leeyahay waan gartay Cabdiwahaab waqtiga inuu yara naga soo gabagabeynaa shirkan dawladda Soomaaliya inta BBC doogta kama soo qayb galin laakiin si ra'iisul wasaaraha dalkan uu tagay Soomaaliya Boris Johnson markaa xogeeyaha arrimaha dibadda maxay Soomaalidu ka faa'iidi karaysaa shirkan maalgashiga ee Afrika iyo UK Soomaaliya iminka waxay u baahan tahay maalgashi xoog leh maxay Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa dagaaladii sokeeye afay 30 sano soo dhaafnay wadanka dib u dhis ayuu u baahan yahay yani dhinaca macnaha warshadaha dhinaca beeraha iyo dhinaca macnaha khadamaadka in wax looga qabto si marka ay ugu faa'iideysto macnaha tartankan cusub ee qaaradda Afrika ay ku tartamayaan wadamada dhaqaalada horumaray marka taa waxay keeni kartaa marka Soomaalida inay yani la timaado yani maskax cusub ay la timaado macnaha waxa weeye maamul cusub oo ay la timaado waxa weeyaan maalgelin cusub habkii u wajeelayd oo marka loo baahan dadka Soomaalida maanta xukuumadda ama dadka maanta mutacalimiinta Soomaalida arinta aad ugu fakiraan maxay Afrika way dhaqaaqday hadii marka yani maalgashi cusub lagu sameeyo qaaradda Afrika Soomaaliya ay ku taal meel istaraatiiji ku taalo xabta dunida xabta Afrika ugu dheer ay ku taalo Soomaaliya macna macdan far badan laga helayo Soomaaliya shitaal far badan uu ku jiro marka Soomaaliya waxay kamid wadamada maanta ay wadamada dunida weyn ay ku tartamayaan ay kamid tahay ama China ha noqoto ama Mareykan ha noqoto aad baad maadsantahay Dr. Cabdiwahaab kalmadda ugu dambaysa aan ku siinaya Soomaalidu maxay ka faa'iidi kartaa shirkadaheeda dadkeeda qurba jooggeeda UK ku nool maxay Soomaaliya ka faa'iidi karaysaa guud ahaan runtii without investment caalamku ma jirayo Soomaaliyana ma jirayso wadan kalena ma jirayo marka waa in la helaa in Soomaaliya ay hesho maalgelin buuxda qaaradda Afrikana ay hesho iyadoo taa iyada ay tahay sida aad uga faa'iideysataad u diyaarsato waxa la yiraahdo xeerkii dalkaaga lagu maalgelinayay oo waliba u muuqda symbolic inaad kasbato maaragtay wadamada ku maalgelinaya waayo waqtiga xaadirka waxaynu ognahay wadamada ka soo qayb galay shirka Soomaaliya kuma jirin anoo waliba xasuusinay ummadda Soomaaliyeed inaynu ka gaabinay oo dhanka isaga ah aad moodo in aad looga gaabiyay siyaasadii maaragtay aynu ku kasban lahayn in dalkeena lagu dhaqaale geliyo ama wadankeenu maaragtay oo caalamka ku soo jiito aynu ka gaabinay maaragtay waxa kale oo xasuusinay Cabdi Daakir maxaad leedahay dhanka qurba joogta dadka Ingiriiska ku nool Soomaalida way ka faa'iideysan karayaan runtii maalgelinta oo hadda taagan ama dalkana Soomaaliyaba meel kasta waxay u baahan tahay in horumarka laga shaqeeyo marka sida aynu la wada socono Soomaaliya iyo wadamadan la maalgelinaya waa wadamada LDC lagu magacaabo luqadda dhaqaalaha ama less development country-ga marka waa inay helaan shacabkiisa iyo dadkiisa dhaqaalaha leh iyo dadkiisa milyaneerka ah inay isugu tagaan oo wadanka laga shaqeeyo kaabayaashiisa iyo horumarkiisa dhinaca beeraha waayo Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada uu ku fiican uguna mudan waqtiga Cabdiwahaab soo gabagabeynaya Ingiriisku waxay sheegeen ra'iisul wasaaruhu in Soomaaliya ammaanku ka caawiyaan marka Soomaaliya ay xaqiiqada ka jirto soo xagga ammaanku uma baahna ma oran kartid mise waxay u baahan tahay maalgashina والله فيري سوماليا waxay imanka waxay u baahan tahay development agenda u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay maalgashi u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay yani in project weyn loo qabto jidadkii loo dhiso yani waxa way kaabayaasha dhaqaalaha la kabo waxa way reconstruction and rebuilding u baahan Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya uma baahna wax loo yaqaan yani humanitarian aid uma baahna yani wax loo yaqaan yani in la siiyo musaacado macna yani xagga bini'aadanimada uma baahna maanta Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay dhaqaaqdo Soomaaliya waxay u baahan tahay inay tabaqado Soomaaliya waxay u baahan tahay martii inay hor u socoto taana wax lagu gaari karaa تجلس عبد الوهاب إلا شركة ذو حب بعين هؤلاء ولا الوحوين أمنية الصومالية ولا سوكرة هدي ودمضان ما تأود له كهر دمي الصومالية أي شيء كيهين صوماليا وكنتم يعني وحوي إلا أمان كذا السوق هذا جماعهن بحيالي وحد مدار رهانتي إن ودمضان هرمري أما ودمضان الصومالية كهولا أي حاجة الداعين يان أو أي ترين يان صوماليا مدة لكن دي دبتها إن أمان كصوماليا للسوق أي دبتها إن عبد الوهاب إنه حاجة الداعين الصومالية سماها wadamo xagal daacinayo la wada xagal daacinayo laba hoos oo Soomaalida ay dhibta badan keedu ka imanaysa dadka qaar leeyihiin Soomaalida dhexdooda
waxaan shaki lahayn in cadowga ugu badan ugu weyn Soomaaliya inay Soomaali tahan shaki lahayn laakiin haddana waxa weeyaan wadamadan caalamkan waxa mid runtii inay xagal daacinayaan Soomaaliya ku salaamaya Cabdiwahaab Dr. Cabdiwahaab aad baad u mahadsantahay Nairobi naga soo gurtay waxaan xasuusinayaa adiga iyo Cabdiwahaab caalamka lama maalgelin karo without stability marka Soomaaliya iyo Afrika iyo duniduba way u baahan tahay in laga shaqeeyo nabadda iyo dhismaha maaragtay Cabdi Cali Daakir intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaygii dooda Khamiista ee caawiya caalamka dhammaantii waa mahadsantihiin nabadgelyo